أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا وأمور المسلمين. halkan waxaan galaynaa walaalayaal leelayaashii ku saabsanaa casharadii dugsiga sare ee form 4 ama galaaska afaraad ee dugsiga sare leelayaashiisa ayaan galaynaa. waxaan ku jirnay cutubkii koobaad cashirkiisii labaad ayaan ku jirnay. hadda waxaan galaynaa عوامل النهض الأدبية في العصر الحديث. تقويم كيس ayaan galaynaa waliyaa تقويم الدرس cashirka qiimeyntiisa ayaan galaynaa. تقويم الدرسيgiisa ayaan noo bilaaban doonaa hadduu ilaa idmo. waxaan ka codsanaynaa dadka nagu taxan layligan ka faa'iideysanayo inay subscribe noo saaraan hadduu ilaahay kuu samagol yahay si uu u gaaro dadka ku cusub casharada. dadka hore ku jirana haddii ilaahay kuu samagol yahay ay laagta noo saaraan baan ka codsanaynaa ay nagu caawiyaan inaan sii wadno hawsha aan noo garab galaan wanaagga aan wadno iyo dadka inaan u faa'iideynayno insha allah. halkan waxaan galaynaa awalan nujiibu can al-as'ilati al-aatiya. waxaan ka jawaabaynaa su-aalahan soo socdo ayaan ka jawaabaynaa. عدد تري بكلية عوامل النهضة الأدبية في العصر الحديث ثم تحدث عن واحد منها بإيجاز. waxaa tirisaa cawaamisha keena horumarka suugaanta casriga cusub kana sheekee mid ka mid ah ayaga. cawaamisha nahdatul adab mid ka mid ah ka sheekee. waa kana jawaabtii. عوامل النهضة الأدبية في العصر الحديث. عوامش هرمركا سوغانتا عصرك عصب وحكمدة اليقظة الوطنية وكمدة والحركات الدينية كمدة المعاصرة والاتصال بحضارة الغرب يا كمدة والاستشراق يا كمدة وعوامل أخرى كمدة وكمدة اليقظة الوطنية برارك غرنما يا كمدة حركات الدين والمعاصرة دقائق الدينية يا كمدة عصرك والاتصال بحضارة الغرب xiriirka xadaarada ee reer galbeedka ayaa kamid ah. wal istishraaq reer galbeednimo ayaa kamid ah iyagana waa istishraaqnimo kala yiraahdo waaye. waa cawaamil ukhraa iyo cawaamil kale. nashraxu al-xarakaat ad-diiniyya al-mucaasira. nashraxu al-xarakaat ad-diiniyya al-mucaasira. dhaqdhaqaaqyada diimeed ayaan sharaxaynaa halkan oo kamid ah cawaamil nahdati mid kamid ah. nashaad hadi al-xarakaat. dhaqdhaqaaqyadan way bilowdeen mundu laga bilaabo muntasif القرن الثاني عشر للهجري kala barkii qarniga 12aad hijriyada ah. washaacad fi العالم الإسلامي waxayna ku faaftay caalamka islaamka. wastahdafad waxayna beegsatay إحياء الإسلام islaamka in la nooleeyo والدعوات إلى الألوهية والدعوة يريد إلى الوحدة الإسلامية islaamka in la mideeyo وتعليم المسلمين muslimiintana wax la baro ayay u dhaqaaqday xarakaadkan diiniyadka mucaasirka ay qabatay. jawaabteeda wataa qayb kamid ah ka dooranay. labo ما أثر كل من الترجمة والطباعة في نهضة الأدب. raadka uu leeyahay maxay tahay tarjumidii iyo daabacaadii horumarka nahdati al-adab adabka inuu horumaro sare kaco maxaa kamid ah saameyntii uu ku yeeshay raadadkii in la tarjumo adabka carabiga in la tarjumo baalkii la tarjumo lagu tarjumo luqooyin kale ama ayagii suugaantoodii ku jira in laga tarjumo afafkoodii ajnabiga loo tarjumo carabi maxay raad ku yeesheen. jawaabtu waa kana. وقد أثرت وراد بكيالة راد بكسيمسة الترجمة في نهضة الأدب العربي. سروكع أدبي عربي ترجمتي سلا ترجمة راد أيو كويا شيء الحديث عصب من خلال أنت اللي قلت مثل سيدا الثقافة الغربية أقوانت الرجالبات والله جاهلي يو علوم تيسا أو لو ترجمي إلى العربية عربية لو ترجمي أما عكسي عربي ثقافة كتير وحلو ترجمي تير قلبيتك يا لو ترجمي. وانتشر وحافا في الطباعة وحيالها كويا شيء نسرك أدب كوكروك وحكمده طباعتي وحيال الطباعي يفافي حكمده. والكتب وانتشرت طباعتنا ويفافتي والكتب ويفافتي بشكل أكبر قاب وين بكثير وحبضا من قبل هري انتي سيتشرين طباعتنا كتبتها ولا طابعه waagi hore wax yar bay ahayd laakiin markii daabacaadda iyo kutubtan la bilaabay in la qoro waxayna faaftay buu ku leeyahay arrinkan si weyn bay u faaftay markii loo fiiriyo markii hore. saddex su-aasha kale waxaa weeye kayfa ashamat xarakatu ixyaa التراث. see uga qayb qaateen dhaqdhaqaaqii ixyaa التراث la oran jiray xarakadii la oran jiray ixyaa التراث dhaqdhaqaaqii ururkii la dhihi jiray ixyaa التراث nooleynta dhaqamada. tadawwar al-adabi
أدبك هرمركيس سوى قبقاتين الحديث عصب. وحير أسهمت وكقبقاتين من خلال نشر كافة الكتب القديمة قبقاتين إن لفافية كتبتي هوري قديمة إن لفافية أيو قبقاتين والتي تاسو تعود ونغنز إلى العصور الأدبية عصري أدبية الأولى هوري أيو قبقاتين كتبتي هوري قديمة وعصر عصورتي هوري أدبية اللون نسبي إنay faafiyaan ayay uga qaateen xarakooyinkan ay sameeyeen kulay soo nooleeyeen. afar su'aasha kale waxa weeye afraad taxadad ka sheekay biijaasi si gaaban waxa uu sheekaysaa can al-aathar as-salbiyyah dhaqdhaqaaqa xun allati taasoo natiij ka dhalatay can al-istishraaqi reer galbeednimadii nimankii la oran jiray wal ittisaali bil gharbiya in la xiriiro reer galbeedka oo xiriirka loola yeesho ittisaalka lagu xiriirka loola yeesho reer galbeednimada maxay aataar xun ay ku reebtay buu ku leeyahay dadka ama islaamka. nataja canhu waxaa ka dhashay buu ku leeyahay xaggiisa kathiirun wax badan oo min al aathaari salbiya raadad xunxun baa ka dhashay min al afkaar xagga fikrada raadad xun bay ku reebeen dadka islaamka wataqaaliid dhaqamadii algharbiyati reer galbeedkana waxay ku reebeen raadad xunxun. waxaa ka mid ah waa min insilaaqin inay ka baxaan kathiirin wax badan ayaa kamid ah min almuslimiina muslimiinta ay ka baxaan can diinihim ay ka baxaan raadadkaasaa kamid ah muslimiin badan ay diinta ka baxaan dhaqankooda ay qaataan reer galbeedka iyo afkaartooda marka waxyaalahaas kamid ah ay ka dhaxleen raadadkii xukunka ay ku yeesheen. wuxuu yiri shan su'aashanaadna hadal adabku sara kacay as-Soomaal suugaanta Soomaaliyeed way sara kacday fil qarni al-20 qarniga 20aad. waxa weeye marka su'aashu ma hiya al-awaamil maxay tahay shaqooyinka allati addad ila dalika arkaas keenay inuu qarniga 20aad suugaanta adab kor u kaco waxyaalaha ka dambeeyay shaqooyinka maxay tahay. وهل هناك علاقة سؤال كلا جرت وهل هناك علاقة حرير مجرى بينه سومالي سوغانتيس وبين الأدب العربي أدب كعربي وحرير مليهن علاقة. جوابته كان العوامل أدت إلى ذلك شقوين كاركاس كان وحويان هي اهتمام المجتمع الصومال بلشة الصومالية أو ضنين يسويه بالتراث القديم dhaqamooyinkoodii hore ay ku dhagan yihiin ayaa keenay in hore sara kaco adabka Soomaaliyeed ama suugaanta Soomaaliyeed caadooyinkoodii hore ay ku dhagnaayeen iyo waxyaalo caadaadkooda ay lahaayeen alqadiimo hore caadaadkoodii hore ay ku dhagnaayeen iyo hadduu Ilaahay ku sababo dhaqamadoodii hore ayaa keenay inuu horumaro qarniga 20aad adabka Soomaaliya. xagga kale su'aasha kale ah xiriir ma leeyin nacam هناك علاقة حرير baa بينه أدبك الصومالي كدحي وبين الأدب العربي إيوس أدبك عربي جاه. لح ويرك اكتب قر عن دور المجامع اللغوية جامعتها اللغوي جاه اسم يالكودي بنقريها بكلية هاي في نهضة الأدب سركع أدبك إنه سركعه بالرجوع على النقطة إلى المراجع هذا. ويري وكان جوابت كان بناء ودور المجامع اللغوية مجامع ده لدسي أفافك قريه دي لدسي ولا سمي يقول علمية تي أقوانات الأماكن وميلها المنوضة لوح لسار بها أيدي العمل إنه شققشوا على تطوير اللغة إنه هرمريان أفك إنه هرمريان في نهضة الأدب سركع سوغان تيكو هرمريان وماشا كليه المجامع أي شقدوا قبنيين وركعس 10 كنا كنتوجيننا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيارتو عن كعصنينا لاكتين النصاران يعدو إلى كل سما قولي هاي يسبسكرابك سان وأنو سي هرمر وسي سمينا وسي شقينا هدو إلى إدمه وإلى اللقاء الآخر.